السلام عليكم maanta waxaan ka hadlaynaa maalintii la soo afjaray adoonsiga Ameerika sanadkii 1619 markab ka mid ah maraakiibta gaarka loo leeyahay Ingiriiska ayaa soo istaagay magaalada Virginia ee cariga Mareykanka waxa uu siday 20 adoon oo ka mid ahaa adoomadii laga soo qafaashay Afrika 20 adoon oo isku bedelay boqolaalkiina kumanaankiina milyan iyo wax ka badan markii hore waxa loola dhaqmi jiray sidii shaqaale la mid ah shaqaalayaasha kale ee reer Yurub muddo kadib adoonsiga uu ku fiday dhulka Mareykanka waxa uu noqday nidaam si qoto dheer ugu xididaystay iskuna bedelay takoorid jinsiyadeed iyo in lagu qasbo shaqooyinka taasoo socotay muddo badan 1640kii maxkamadda Virginia ayaa ku xukuntay 3 nin oo isku dayay inay ka baxsadaan ninkii ay u shaqayn jireen saddexdan nin laba ka mid ah waxay ahaayeen adoomo aan Afrikaan ahayn halka ninka soo haray uu ahaa adoon la oran jiray John Bush ahaana dadkii laga soo qafaashay Afrika labadii cadcad waxa lagu xukumay hal sano ay u sii shaqaynayaan ninkii hore iyo 3 sano ay u shaqaynayeen gumaystaha Ingiriiska halka adoonkii saddexaad lagu xukumay mid ka duwan taas hore uuna sii shaqayn doono inta noloshiisa ka hadhay ama adoon sii ahaan doono inta cimrigiisa ka hadhay halkaas baanay ka bilaabatay adoonsiga dhabta iyo kala soocidda cadaanka ee madowga gudaha Mareykanka sanadkii 1672kii boqor Charles-kii labaad wuxuu dib habeen ku sameeyay shirkadda Royal African Company oo la aasaasay 1660kii shirkaddan oo loo kootiyay ganacsiga Ingiriiska ee adoomaha iyo badeecadaha Afrika laga soo bilaabo horaantii qarnigii 18aad ganacsiga Ingiriiska gaar ahaan gobolka South Carolina magaalada Charleston waxay ka hor yimaadeen shirkadda Royal African ee loo kootiyay ganacsiga adoomaha sanadkii 1698kii gumaystiga Ingiriisku wuxuu dib u furay ganacsiga adoonsiga ee Afrika in ay u tartamaan ganacsada gaarka ah iyada oo la soo afjaray kelitaliskii ay haysatay shirkadda Royal African xeerkan waxa uu ogolaaday ka qaybgalka shirkado kala duwan inay ka shaqeyn karaan ganacsiga adoomaha ganacsiga dadka la adoonsado ayaa aad u kordhay 1680kii ilaa 1710kii dadka Afrikaanka ee ku nool Virginia waxay kordheen ilaa 73,000 oo qof oo ay ka dhigan tahay inay kordheen boqolkiiba 42 gobolka Maryland isna waxa uu kordhay 8,000 Afrikaan oo noqonaysa boqolkiiba 14 1730kii laba nin oo la oran jiray Joseph iyo Benjamin waxay noqdeen ganacsatadii ugu horeysay ee madax bannaan oo ka shaqeysa ka ganacsiga adoomaha si ay ula tartamaan shirkaddii Royal African intii lagu jiray ka ganacsiga adoomaha koonfurta Ameerika waxay horumarisay dalagyada beeraha oo ay ku tiirsanaayeen dalagyo kala duwan taasoo sabab u ah inay heleen ugana shaqeynaya beeraha xilliga oo dhan waxay si degdeg ah u heleen tiro u badan waxaanay soo saari jireen dalagyada kala duwan sida tubaakada bariiska cudbiga taasoo ka dhigaysay beeraleydii inay soo saaraan dalagii soo saari jireen laba jibaarkood sanadkii 1787 oo ku beegan kacaanka Mareykanka ayaa xukuumadda Washington ku dhawaaqday inay madowga noqon karaan ciidan jasiiradda Road waxa ay bilowday in ay qorto adoomada sanadkii 1787kii waxaana ballan qaaday magdhowga adoon kasta oo ka soo baxsada ciidan ay qoray in laga dhigi doono qof xor ah intii uu socday dagaalku qiyaastii 5 meelood meel ka mid ah ciidanka waqooyi ayaa madow ahaa sanadkii 1781kii sarkaal Jarmal ah oo ka tirsanaa ciidamada Faransiiska ayaa waxa uu qiyaasay ciidamada Mareykanka inay yihiin qiyaastii 4 meelood oo meel madow ku dhawaad 20,000 oo ka mid ah adoomada Afrika laga soo qafaashay ayaa ka dagaalamay kacaanka Mareykanka sanadku markuu ahaa 1860kii 6 November maalin Salaasaa waxa la doortay Abraham Lincoln oo noqon doona ninka ku dhawaaqi doona xoreynta adoomada madow waxa uu yiri anigu ma ihi weligiina maan jeclay in la kala sareeyo in loo inoo kala saaro cadaan iyo madow Abraham shakhsiyan waxa uu ka soo horjeeday hay'adaha adoonsiga sabab la xiriira cadaalad darro lagu la kacay qaybo ka mid ah bulshada akhlaaq xumo sinaan la'aanta ka taagan Mareykanka dhexdiisa Abraham Lincoln waxa uu adoonsiga u arkayay inay ka soo horjeedo midowga dalka iyo dadka Mareykanka gaar ahaan gobollada waqooyi iyo koonfur oo barigaas colaado ka dhex taagnaayeen sanadkii 1863kii intii lagu jiray dagaalkii sokeeye ee Mareykanka madaxweyne Abraham Lincoln waxa uu soo saaray baaqa xoreynta adoonsiga Ameerika dagaalo sokeeye oo socday aawadeed markiiba ma hirgelin sharcigu balse ugu dambeyn waa dhaqan kale waxa uu si rasmi u dhamaaday markii la ansixiyay wax ka bedelka 16aad ee dastuurka Mareykanka 1865kii December 6deedii wax ka bedelkii dastuurku waxa uu baabiyay adoonsiga Afrikaanka ee Mareykanka isagoo si wax ku oo loo soo abjaray hay'adihii ka ganacsan jiray adoonsiga halkaas baanay ku dhamaatay adoonsiga Ameerika